gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee u ciiday injineer Faysal Cali Waraabe oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu markii ugu horeysay ka hadlay doorashada ka qabsoomaysa dhawaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya iyo musharaxiinta doorashadaasi u sharaxan ee la sheegay in gobolada waqooyi amaba Soomaaliland ku matali doonaan golaha baarlamaanka ee Soomaaliya. Gudoomiyaha Faysal Cali Waraabe waxa uu tilmaamay inaanay xildhibaanadaasi Soomaaliland matalin, waxaana uu sidoo kale xukuumadda Soomaaliland iyo golaha baarlamaanka ee Soomaaliland ugu baaqay inay ka baxaan xaaladda aamusnaanta oo gudoomiyaha Faysal sheegay inay kaga jiraan arrimaha Soomaaliya. sidoo kalena gudoomiyaha Faysal waxa uu si gaar ah farta ugu fiiqay khilaafka ka dhaxeeya gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya iyo waliba ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya. horta waxa weeye waa nasiib darro maanta inagoo dalkeeni 30 sano gacanta ku haynay alxamdulillah rabbil caalamiin in maanta xamar la yiraaho doorasho ka qayb galayaan dadka reer Soomaaliland. waxaan ii sheegayaa bal waxaan ay sheegayaan leeyihiin dadka ka socda gobolada waqooyi waxa weeye waxay yiraahdeen konton xildhibaan oo waxa la isku haystaa ka socda gobolada waqooyi. horta dadka halkaa tagay waxa weeye waa dad iskoodu tagay konton toddobada la sheegaya leeyahay waa xildhibaano kuma jiraan xildhibaanada la leeyahay way ka socdaan dhulbahantiga warsangeli. waxay ku eegayeen qura dadka ku abtirsada ciisaha isaaqa iyo gadabuursiga iyo nin gabooye ah ayaa weeye ay leeyahay waqooyi gobolada waqooyi. dadka halkaa ay sheegayaan ciisaha waxaa loo qoondareeyey oo lagu qoondeeyey meesha la yidhaahdo carta 9 xubnood. 9ka xubnood baa waxa magacaaba Ismaaciil Umar Geeli qabiil ahaan ku magacaabaan reer Soomaaliland kama socdaan. qoladaas wax u jeed 8 bay leeyihiin Soomaaliya ciisaha 9 waxa ka socda gadabuursiga iyaguna dad iskood bay u tagaan cid magacaawda ma jirto. isaaqana waxa weeye markaan golaha sare lagu darin aqalka sare ee Western iyaguna waa iskood bay u tagaan. waa dad qabiil ku tagay dad dalka iman kara maaha. anagu haddaan soo bixi lahaana maanta lamaba ugu hadleynay iyagoo maqan baan ku xukumi lahaa in khaa'imiin qaran yihiin. hadda wada aqriisu way is hayaan qole waxay leedahay Cabdi Xaashi ha soo magacaabo, qolna waxay leedahay Mahad ha soo magacaabo amba Khadar. maxay ugu kala duwan yihiin? waxay ku duwan yihiin qole waxay gacan siinaysaa ay doonayaan inay codka siiyaan ninka Farmaajo ee ogtiin cadaawadu qaba tii Maxamed Saad ka weyn tahay. Cabdi Xaashi qoladu waxay qabaan ninkaas hal rido iska daa Soomaaliland Soomaaliya oo dhan uu ku hayaa dhibaato khatar gelinayo oo ninka ay ka suurto gashay inuu ciidamo urursado oo badaha Soomaalida oo wadan shisheeye gacanta u geliyay Afrika oo saxay. wanaaga ka suurto gashay Eritrea oo dhulka haysata Djibouti oo Soomaalida inuu ka qaado cunaqabayntii uu la saftay. horta qolkaasi la safantay wax qabiil ma jiro wuxuu dhan waa meesha uu tagay naga inuu matalaan in lagu murmo ma in maanta adduunka la maqashiyo xildhibaanada Soomaaliland ka soo jeeday baa la isku haystaa. inagii baa aamusan marka aamuskaaga waxa weeye in aamusan baa lagu meeriyaa baa in waxaas wax ka jiraan baa la moodiyaa. marka waxaan leenahay dawladda golayaasha arrintan waa in laga hadlaa adduunka loo qoraa bayaan cad la soo saaraa inaanay dadka jooga xamar sida uu soo shaqo doontay magaasa Farmaajo oo shidad sita uu madaxweyne ku noqday ayaguna u tageen ina boosaska loo bixiyay dir waqooyi inay ku soo shaqeystaan ku noolaadaan laakiin wax alla waxay dad matalaan inaanay jirin.
sidoo kalena gudoomiyaha Faysal Cali Waraabe waxa uu ka hadlay Yuusuf Garaad oo dhawaan madaxweyne Farmaajo magacaabay ergeyga gaarka ah ee Geeska Afrika badda cas ee gacanka cadmeed u qaabilsan Soomaaliya waxaana uu gudoomiyuhu eedo u jeediyay madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo tan waxa weeye ka hadlo ninkan la magacaabay Yuusuf Garaad horta way nagu foolxumo mar horena wuxuu magacaabay Farmaajo inuu u adeeryahay ilmaayeen oo ila beled maanta Yuusuf Garaad horta dhulkan la sheeganaya waa badda cas watiina waxa weeye in golayaasha guurtida iyo baarlamaanka soo saaraan oo ka hadlaan arrimahan in inagu socdo dusheena la inagu dulshaxayo in ka hadlaan gobolada waqooyi waxay ugu yeediyaan wax gobolada waqooyi aan jirin dadkaasi dad ina matalaan ahayn wayna ka hadashaa badda cas in inagu leenahay oo in ka ila caabi waa ku dhashay ree caabi waaqi inaanu baddeena aanu u sameyn karin magaranaysa wakiil dhanka kalena gudoomiyaha Faysal Cali Waraabe oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ka hadlay laakiin qofku leh war iska ninkan inkastoo aan Soomaaliland taageersan haddana waan ka soo horjeedaa in la xasuuqo wax la yeelo iyo mid taageeriye ki in xasuuqiye ninkan maanta Cabdi Yuusuf shalay talaha xoog lagu soo sameeyo horta ninkaas marka inta waramo waxa weeye wuxuu ahaan jiray la madaayo haysan jiray doobiil waxa jawhar buka markaas uu galay guulwadayaashii Maxamed Siyaad Bare markuu siyaad ka yaabay sidoo ninkan qabiil uu yahay ayuu soo dalacsay ilaa wasiir ku xigeen buu gaarsiiyay maantana inuu hanjabeynay waxa weeye laba waxba uu ka helay USCO da u suurtagelisay inuu haddana maanta inankii uu adeerka Maxamed Siyaad Bare inta codsiyaan fiila Soomaaliya geliyaan oo isaga ka dhigto la taliye taas waa suurtagashay haddii kale wuxuu ku baqtay lahaa Burtile ayuu ku baqtay lahaa inuu xamar joogo ma xaraam bay ka ahayn iyada inagoo ilowni godobteeni oo isaga in badan oo caynkaas oo gamcaha dhiiga ku lahaa dhiigana gamcaruuteena dhiig ku leh ayaa adduunka iyo xamar meelaha daadaashoonaya ninkaas waa halkiisi Cabdi Jabbaar Maxamed Xuseen Television Kerial Hargeysa